كان قفوض وحان هو سيال بقول اسوديني على مدن سانة محلو لجدا ولي سؤال لما قبل على مدى سوا إليميناتي أي دتكو قارو هستان قارو حيو إذا هذا هو نيو وورلد أوردر وحويه adduunka in yar ilaahay ka soo in yar ayaa adduunka control ka ku haysa gacanta Soomaali iyo Muslim iyo gaal iyo adigu Yahuudiba qof kasta ma badna dadka marka qaadan kara ama lagu casumi karo ama la karo Soomaalideena marka hadda ku sheegay jawaabta Soomaalideena 8 weeye 3 waa dumar مشروع ابي بليز kani waa DJ Super oo markii ugu horeysay qiray in ay jiraan fanaaniin haysta diinta shaydaanka loona yaqaano Illuminatika. DJ Super sidoo kale waxa uu qiray in 8 kamid ah fanaaniinta ay haystaan diintaasi shaydaanka. waxa kale uu sheegay in 3 kamid ah yihiin dumar halka 5 kalena ay yihiin rag. laakiin se DJ Super ma wacdin cid ay yihiin fanaaniintaasi. waxana waayadii ugu dambeysay baraha bulshada si weyn u haystay fanaaniin uu kamid yahay Qamar Suugaani, Ugbad Aragsan, Yaliil Baliil iyo Xawakiin in ay kamid yihiin dadka haysta diimahaasi shaydaanka ah. baraha bulshada si weyn u haystay. haddaba se intaan muuqaalka u sii gudagelin walaal macaan marka hore muuqaalka like sar sidoo kale subscribe sar haddii ay tahay markii ugu horeysay soo booqato kanaalkeena. DJ Super oo kamid ah DJ-yada caanka ah aadkana loo jecel yahay ayaa inta badan waxa uu soo bandhigaa sir qarsoon sidoo kalena waxa uu kaftan oo soo dhigaa baraha bulshada kaas oo asxaabtiisa waraysiyo gaar ah kula yeesha barta uu ku leeyahay Snapchat-ka. sirtan uu qarxiyay DJ Super ayaa hadda u muuqata in waxyaabihii ugu dambeysay baraha bulshada si weyn loogu hadalhayay sidoo kale dadku ay sheegayeen in fanaaniin kamid ah Soomaalida ay haystaan diintaasi shaydaanka loona yaqaano Illuminatika. waxaana maalmihii ugu dambeysay baraha bulshada si weyn u haystay in fanaaniinta farakutiriska ah ee caanka ah ee ay haystaan diimahaasi ay kamid yihiin Qamar Suugaani, Yaliil Baliil, Ugbad Aragsan iyo fanaanada kale caanka ah ee Xawakiin taas oo baraha bulshada waayadii ugu dambeysay maalmihii ugu dambeysana lagu qaada dhigay arintan oo noqonaysa mid gabi ahaanba dadku ay markii hore shaki ka qabeen hadda laakiin si ay cadaatay walow aanay jirin cid si rasmi ah u sheegi karta. sidoo kale DJ Super waxa uu muuqdaa mid gabi ahaanba ka gaabsaday in fanaaniintaasi uu banaanka keeno sirahooda sidoo kalena laakiin uu si guud ahaan u dulmaray oo uu sheegay in ay jiraan dad fanaaniin ah oo haysta diinta shaydaanka ama loo yaqaano Illuminatika. arrimahaasina waa mid runtii aad looga naxo. fanaaniinta Soomaaliyeed waxa inta badan lagu xantaa in ay yihiin kuwa markastaba waxa iyagu naftooda jeceshahay ay sameeyaan haddii ay haato waxyaabo dhaqan xumo ah baraha bulshada ay ku soo kordhiyaan sida heesaha iyagoo qaawanay soo qaadan iyo in muuqaalo galmo ah ay baraha bulshada soo geliyaan iskana soo duubaan. sidoo kalena arrimahana ay yihiin arrimo runtii aad looga naxo oo ay kamid tahay in fanaaniintu ay qaataan diimo kale aaminsanaan diimo kale kuwaas oo caabuda qaar kamid ah shayaadiinta. waxaana arintani ay soo bilaabantay xilligii uu fanaanka caanka ah soo baxay Yaliil Baliil kadib markii action kala duwan uu ku sameeyay heestiisii halka iidan Ugbad Aragsan ay iyaduna u muuqatay mid soo bandhigaysa action kala duwan laakiin si marka su'aal la weydiiyo ka muuqato iyo fanaanka caanka ah ee Qamar Suugaani oo isagana maalmihii ugu dambeysay u muuqday mid soo bandhigaya waxyaabahaasi xitaa la sheegay in heesa kamid ah qaaday ay ku dhex jiraan calaamadaha Illuminatika. waxaana sidoo kale baraha bulshada ay ahayd mid lagu qaada dhigay laguna hadalhayay shakhsiyaadka aadka u muuqdana ay yihiin Ugbad Aragsan, Yaliil Baliil iyo sidoo kale Qamar Suugaani kuwaas oo markasta baraha bulshada ku soo bandhiga actionada iyo sidoo kale qaababka inta badan ay steelka u galaan ama heesaha ay ku soo duubaan kuwaas oo ka turjumaysa inay haystaan diimahaasi. laakiin se waxa jira fanaaniin kale oo la tuhunsan yahay. haddaba se hadalkaas DJ Super uu ku shaaciyay sidoo kalena uu ku sheegay in ay jiraan fanaaniin haysta diintaasi shaydaanka ama loo yaqaan Illuminatika ayaa ay dad aad u tiro badan falcelino kala duwan ka sameeyeen baraha bulshadana ay ku soo qoriyaan qoraalo ah in markii horeba ay uga shaki qabeen fanaaniinta qaar sida ay u soo heesaan sida ay u xiirtaan iyo qaabka ay ku soo galaan heesaha inay yihiin kuwo markii horeba ay ka shakisanayeen laakiin sina hadda uu shaki tiray maadaama DJ Super uu ka mid yahay DJ-ga inta badan la qaraabta la shaqeysta fanaaniinta
fanaaniinta Soomaaliyeed kuwaasoo inta badan heesa kala duwana uu isaga u yahay kuwa mar walba la socdo oo gacan yaraha u ah. DJ-gan waxa ka mid yahay DJ-ga inta badan Soomaalida bulshada Soomaaliyeed dhexdeeda caan ka ah, waxaana safarro kala duwan uu mar walba ku kala bixiyaa meel kasta oo adduunyada ah, taasoo mar walba kusoo bandhigo baraha bulshada muuqaalada, sawirada uu soo duubo iyo sidoo kale wareysyada gaarka ah ee uu la yeesho fanaaniinta qaar, taas oo inta badan fanaanku uu su'aalo ku karbaasho fanaaniinta qaar. walow DJ Subeer isaga uu yahay DJ-ga kaliya ee waqti xaadirkan soo bandhigay waxyaabahan qarxiyana sirtana ay yihiin wax la isku haleyn karo, maadaama fanaaniinta qaar markii wax laga weydiiyay laguna tilmaamay in ay haystaan diimaha shayaadiinta, waxay inta badan ku tilmaameen in haba yaraatee aan arrinkaasi waxba ka jirin, laakiinse isteel ahaan ayagu waxaan u sameeyaan. laakiin DJ-gu hadda waxa u muuqdaa mid cadeeyay arrinkaasina uu yahay arrin jira oo waxyaabaha baraha bulshada inta badan dadku ay tuhmaan ay noqoto mid xaqiiqa baraha bulshada lagu soo bandhigo, waxyaabahaasna ay inta badan ka dhaca in falcelino kala duwan ay bulshadu ka sameeyaan si bulshadu ay wax badan uga ogaato. fanaaniinta Soomaaliyeed waayadii ugu dambeysay waxay hayeen kuwo markastaba dhex dabaalanaya fadeexado kala duwan oo inta badan la arkayo, halka qaarna ayba inta badan qarsadaan waxyo la arkayo. waxaana jirta in fanaaniinta ay badankoodu taageerayaashana yihiin kuwa mar walba difaaca, iyagoo aan qof walba shaqsi walba ay taageerayaan ama fanaanka ay taageerayaan aanay ogeyn wax uu yahay iyo wax uu laabta ku hayo, taasina aanay fiicnayn, loona baahan yahay qof kastaba inuu ka digtoonaado. arrimahan diinaha shayaadiinta iyo maansuuniyadda ayaan wax badan laga aqoonin bulshada Soomaaliyeedna waxa ayaan kuwa gab ka ah halkaasi, laakiin waayadii ugu dambeysay ay hayaan kuwa sida tooska ah gabi ahaanba bulshada uga soo dhex saaraya waxyaabo fara badan, taas oo markii hore aan la aqoonin. waxyaabaha inta badan dadku ay wax ku ogaadeen waxaa ka mid ah in ay barteen waxyaabo kala duwan, sidoo kalena ay ogaadeen qaar ka mid ah fanaaniinta Soomaaliyeed akshanada ay ku xadaan iyo sidoo kale qababka ay sameeyaan inay tahay waxani wax gabi ahaanba khalad ku ah diintooda, sidoo kalena calaamadaha qaarna ay yihiin kuwa la rabo in qof kasta uu ka digtoonaado, maadaama wax walba wax looga jeedo. diintan Illuminatika waxaa la sheegay inay tahay diin shayaadiin, sidoo kalena dadka qaarna ay haystaan dunida dacallada qaar ka mid ay ku nool yihiin, waxaana la sheegay inay ka turjumaysa diljaal cawar iyo in gabi ahaanba lagu soo dhaweynayo. arrimahaasina ay yihiin kuwa inta badan aan loo baahnayn la si dhex galo, maadaama qofka muslimka ah uu diin suuban haysto, diintiisana uu ku ekaado ay muhiim tahay. fanaaniinta Soomaaliyeed ee arrimahan lagu sheegay waqti xaadirkan ee ah in ay ku jiraan diimaha kala duwan, sidoo kalena uu soo bandhigay DJ-ga waa mid runtii aad naxdin u leh, sidoo kalena muujinaysa in fanaaniinta yihiin kuwa aan iimaan lahayn qaar ka mid ah, halka qaar ka mid ah fanaaniintu badankooda aan isku jirin, qaarna yihiin qaar wanaagsan, qaarna yihiin kuwa xun oo loo baahan yahay inay ka waantoobaan diimahaas iyo dhaqan xumadaasi laga sheegayo oo ay haystaan. taasina ay tahay in mid kastaba iyo fanaan kastaba uu soo bandhigo waxyaabaha isaga khaas ku ah, sida inuu diintiisa faafiyo, sidoo kalena uu soo bandhigo calaamadaha diintiisa quruxda badan ay wanaagsan tahay. fadeexadaha kala duwan ee dul hoganaya fanaaniinta Soomaaliyeed ayaa ah mid isu soo taraysa marba marka dambeysa, taas oo marka qaar la sheegay inay soo bandhigaan dhaqan xumo, qaar la sheegay inay soo bandhigaan in diimo kala haystaan, qaarna la sheegay inay yihiin kuwa inta muuqaala galmaha iska duwan baraha bulshada soo geliyaan. taas waa aadka dadku ay mar walba baraha bulshada uga soo hadlaan, sidoo kalena ay u muuqato waxyaabo aan la aqbali karin, loona baahan yahay in fanaaniinta ay muujiyaan in gabi ahaanba fanka dadka ku jira in aanay ahayn dad laakiinse fanaaniinta badankoodu waxyaabahan lagu arko mar walba ee baraha bulshada lasoo geliyana ay mas-uuliyadeedu ay iyaga qaadayaan, dadka qaarna ay ku tilmaamaan in fanaaniintu ay yihiin kuwa iska dhaqan xun oo markasta wax walba laga filan doono.